بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشر كأنه وحوعا وكب اللابن هيا آيات طبن إيا السقالات ومن سورة الحاقة سورة اللي سورة الحاقة آيات طبن إيا السقالات ومن هذه السورة سورة داس آيات داس وعشر كأنه كب اللابن هيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من روحي أوتي لسيو كتابه كتاب كيس كتابك عمل كيس قفك لسيو بيمينه قعنتي سمدك تالغسيو إلهي قوة قعنت مدك لوغدي بها النقدر فيقول وحو أرانيا هاؤم qaata aniga kitaabkayga macnaha haa-udu waa qaadasho weeyaan haa-umu qaata waa ismu ficil oo bimacnaa khudu oo kaleeta qaata iqra'uu akhriya kitaabiya aniga kitaabkayga akhriya innii anugu danantu waxaan maleeyey oon yaqiinsanay annii anugu mulaaqin inaan la kulmayo xisaabiya aniga xisaabtayda فهو الروح عاصي مركب في عيشة نرول دحديد بو هذا نرولشاس راضية أي مرضية لغا راضية هي معناها نرول أو راضي أو لغا راضي هذا أيوكو دحجرية في جنة دحديد بو هذا جنة داسو عالية سريدة أو ير إلهي سبحانه وتعالى إله نقارسي جنة داسو قضوفها قرشديدو iyo miraheedu daaniyatun ay dhowdahay buu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala janno oo waliba haddana ay dhowdahay miraheeda iyo gurashadeedu waxaa loo oran doonaa ahlu jannaha kuluu cuna washrabu caba ayaa loo oran doonaa cuna oo caba ayaa loo oran doonaa ahlu jannaha hanii'an xaal aatiin kuwa shifaysanaya oo bogaagsanaya bimaa aslaftum waxaad hormarsateen sababtooda ku cuna oo ku caba fil ayaami maalmihii alkhaaliyati ee tageen oo hadda ka hor la soo dhaafay wa amma man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabka camalkiisa bishimaalihi bidixda qofkii looga dhiibo ilaahan ka magan galnay ilaa kuwa bidixda looga dhiibo ilaahay nagu madaro fayaquulu wuxuu dhihi doonaa yaa laytanii alla aniga shallaytadayde lam uuta layma siiyeena allow aan lay siiyeena maxaa la ii siiyey kitaabiya aniga kitaabkayga walam adri ma ogaadeena alla maxaan u ogaaday maa xisaabiya aniga xisaabtayda waxay tahay yaa laytahaa dhimashadan shallaytadeedee kaanad ahaateena alqaadiyata midii wax dilaysay oo nafta iga goynaysay maxay u noqon weysay midii qaadicada ahayd nolosha jaraysay ما أقنى مديقن عني حقيقة مالية أنيقى حوله وحبا إيقو مترين هلك وحا حلاك سمي عني حقيقة سلطانية أنيقى أود دي حجري دي ويها لك سنتو أرندونا وحا الله دي دونا خذوه قبطة فقلوه كتين بايا oo gacmaha iyo qoorta isku xira sida loo ruuxa la xabisa ee naarta ku tuura ثم الجحيم نار الجحيم اللي يراهدو او كليلك بدن عادنا الله منها خذ صلوه قلي او كرده ثم في سلسلة باسو درعها دمينتيدو 70 ذراعا تضبط ددن اي تاي waxaan rabaa 70 dudun ay tahay oo dudunka malaga faslukuhu galiya afka ka galiya ee duburka uga bixiya gadaal uga bixiya intaasoo cadaaba waxaa loo cadaabayaa innahu ruuxa ama mankaasi kaana wuxuu ahaay laa yu'minu midaan rumaynin billaahi ilaahay allahaasu alcadiimi ee cadiimka ahoo weyn walaa yaxudu ma boorri jirin calaa dacaami almiskiini miskiinka in wax la siiyana ummadda kuma boorri jirin falaysa lahu ma u sugnaanin ruuxa ama gaalkaas alyawma maanta haahunaa meeshaan xamiimun ruux qariib ah oo xamiim ah oo saaxiib ah oo wax ku tari kara ma helaayo walaa dacaamun cuntana uma sugnaanin ilaa min qisliilin dhacaanka ahlu naarka ma ahane ama dhashuuna culummadu way dhahaan ilaa min qisliilin mililka ama wasaqda ama carunka ahlu naarka ka soo milma maahane
وحكلو عنتا ما بهلايو لا يأكله قسليل كاسو لا يأكله أيسن عنين إلا الخاطئون كوا قفلو يالكا أو قفما هانه عدكلو عنتا مجرده كليا وحا وصقدا يقسلين كعنيد لوغدغا ددك قفك بدن أو ذنبك بدن فلا أقسم فأقسم وحان كدارنا يا أبو إلهي يري بما تبصرون وحا أدو جيدان لولك عرك قرحضة ضيحة ددك انت مخلوق إذين موقتان لوغا جيدا iyo wama la tubsiruna waxaadna u jeedino jannadii naartii kulli waxa soo kaleeto intaas baan ku dhaartay innahu quraanku la qawlu rasuulin nabi la soo diray hadal oo ku hadlay weeyi oo nabiga waa loo idaafeeyay maxaa yeelay hada rasuulku waxa weeye waa midka ummadda u soo sheegay ilaahayna waa loo idaafeeyaa laanahu hada kalaamki ilaahay ملك جبريل والله إضافية أو أصلا مرة لوتيريا لأنه هو الرسول كي النبي أسي كينا عليه الصلاة والسلام إنه قرآن كل قول رسول نبي للصوت دري هذا أو كهذا يويان رسول كاسو كريم ونكسن وما هو قرآن كماها بقول الشاعر ننقب ياي هذا الكيماها إلا النبي كشيغان شاعر دهان قرآن كان واقبقي سيوي لهن دعاية داسي قالدي فيديان واللوغة جوابه وكلام الله قرآنك ومخلوقنا لما أرنكره محايا لي كلامك يوحوي يوهد هذا الواتلمان إلهي تلمان تيسا إيا ذاتدي سوى قديم سيدا عديق هذا الكاغا إيا موقال كاغا إيا مدب كاغا إيا شركاغو مخلوق وديهين إلهينا تلمامهيسا إيا ذاتدي سكل وقديم ملغو تلمامي كره وحل يرى حادث لغمة المامي كرويا وما هو قرآنكم معها بقول شاعر قبياي قولك معها شاعر قبياي قولك معها قليلا ما تؤمنون قليلا وحير ما ذو زائد قليلا وحير ما تؤمنون معناها تؤمنون وادرمين إيسان قليلا إيمانا قليلا بكدق انتهى ليه وحير بادرمين إيسان ما ذو زائد قليلا وحير ما آدو سيران بدنبات تؤمنون الرمين إيسان أما يؤمنون أي رمين ينوغل كلات ولا بقول كاهن فلا فلو أما كاهن وحقلا معودية هذا الكيسن قرآنكم معهن كاهن كاس معناها هذا الكاهن معهن أو نفلا فلونا كما هضلين قبيين كما هضلين قرآنكم وكلام الله وكلام رب العالمين والنبي محمد هذا الكإله يؤذين كان عليه الصلاة والسلام لكن قول شاعرنا معها قول كاهن معها قليلا ما تذكرون قليلا وحير ما آدو سيران بضنبات تذكرون وانسميسان تنزيل من رب العالمين هو قرآنك أسو قدره هو قرآنك تنزيل أي منزل ومثل سودتي من رب العالمين عالمك أوردن ربكي ما ملاي حقي سألك سودتي ولو تقول حضو أراه سميسان لها نبي محمد سيدات شيكتين هذا الآنان بهن حضو كوركين كو أبوران لها ما بكو أبوران ايه فرض المستحيل أيضا علماء معناها هدي لقدره سيدات شيكيدان oo waadinka dhahay hadalka nabi maxamed jeebkiisa kala yimid waa gabiyay oo gabayo isku soo duuduway weeyi waa kaahin oo waxyaabo kale oo falaanfulnimo oo ku keena weeyi waa asaadirul awwaliin oo waa taariikhdii iyo maantolayaalkii odayaashii hore noo akhrinayo weeyi waadinka oranayee haduu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaashaahu allah ilaahay baaba ka hufay soobanaha xitaa haduu hadal beena dusheena ku samaysan lahay هل بولهن كتري لهم بوله يري وحنا ريبي كر عذابتي سنة ماله مرة أوصلنا ولادين مركا أننا نقول بين أبو ركرة أو هذا الأمر أنان دهن قرآن كذي كر لما أركب إلهي سبحانه وتعالى ولو تقول حضو أراه سميسن لها علينا دشينا النبي الله محمد بعض الأقاويل أراه يالك قيب كمدا حضو دشينا كسميسن لها لا أخذنا ونقبن لهين منه حقيسة باليمين أود بانكو قبن لهين ثم لقطعنا ونشر لهين منه النبي محمد حقيسة الوطينة هل بولها
xididka halbowlaha la yidhaha baan ka jari lahayn famaa minkum idinka mid maahan min axadin axad idinka mid maahan oo canhu xaggiisana xaajisiina naga teeda oo naga reebaya weeyaan ruux naga reebi karana ma jiro wainahu qur'aanku latadkiratun waana weeye lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaayo waana u yahay wainaa annagu lanaclamu waxaan ogsoonahay anna minkum inay idinka mid yihiin mukadibiina kuwa qur'aanka beeniya wainahu qur'aanku laxasratun shallayta weeye iyo qoomamayto cala alkaafiriina gaalada dusheeda qiyaamad ay ka shallay doonaan alla maxaan u qaadan waaye maxaan u dhegaysan waaye maxaan u rumayn waaye maxaan u jeclaan waaye maxaan hadalka ilaah wax uga sheegay waa yowma laa tanfacu nadaama walxasra maalin aan shallay iyo cabaad wax tarayn baa la cabaadi doonaa laakiin kalkeed maaha hadda ayaa qofku waxa weeye waxaa u eg inuu tooba keeno qaladka inuu ka laabto carabkiisa inuu ilaaliyo qur'aanka ilaahay inuu rumeeyo wixii wanaagsan uu ku amro inuu ku dhaqmo wixii xumo kuu diida inuu ka haro hadday ku eg tahay laakiin gaalku maalinka uu cabaadayo maalinkaas shallaygu wax materayo ilahay subxaanahu wa tacaala wa innahu qur'aanku laxaqu lyaqiini hubaal yaqiinteed weeye macnaha xaq oo yaqiina maxaa looga jeedaa waa hubaal yaqiina fasabbix nasah oo xumaan oo dhan ka nastah bismi rabbika alcadiim allahaaga cadiimka nabi moxamedow magaciisa xumaanka nasah oo ilaahay wax xumaan oo dhan in lagu tilmaamo ka nasah nabiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi araxmaani araxiim fa amaa man uutiya qofkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi gacanta midig looga dhiibo fayaquulu wuxuu odhan doonaa haa umu qaata kitaabkayga hooda arka kulligeen faraxay uga cadda iqra'uu akhriya kitaabiya kitaabkayga wada akhriya kulligeen innii anugu danantu waxaan maleeyey annii aniga mulaaqin inaan la kulmaayo xisaabiya aniga xisaabtayda inaan la kulmi doono ayaan malaynaayay fa huwa ruuxaas fii ciishatin nolol dhexdeed buu ahaaday noloshaasoo raadiyatin raadi laga yahay raadiyatin ay mardiya looga jeedaa laga raadi yahay fii jannatin nolol dhexdeed buu ahaaday waxaan rabaa fii jannatin janno dhexdeed buu ahaaday jannadaasoo caaliyatin sarrayda haddana ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala jannadaasoo quduufuhaa gurashadeedu iyo midhaheeda la guranaayo daaniyatun mid dhow ay taha buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa loo odhan doonaa ahlu jannaha qiyaamada maalinkeeda kuluu cuna washrabuu cabba hanii'an xaal aad tihiin kuwa bogaagsanaya oo shifaysanaya shifo meesha ilmaha la yidhaho kaleeto macnaha dhuunta kaaga istaagi maydo waa cuntadii oo shaygeed cunto ku macaansato farax iyo suruur kuugu dhammaado wey cuna xaal aad oo cabba adinkoo bogaagsanaya haddana kuna caba bimaa aslaftum waxaad hormarsateen acmaashii suusuubaneed ood horay ula timaadeen sababteeda fil ayaami maalmihii aad soo hormarideen ayaamahaasu alkhaaliyati soo tageen waa ayaamtii adduunyo wa amaa man uutiya ruuxii la siiyo kitaabahu kitaaba acmaalihi acmaashiisu kitaabkii ku qoreed bishamaalihi bidixda qofkii looga dhiibo ilaahan ka magan galnay fa yaquulu wuxuu odhan doonaa yaa laytanii shallaytadaydee lam uuta laysiiyeenaa kitaabiya aniga kitaabkayga allow maxaa la ii siiyey kitaabkayga saasay ka dhigan tahaa la yidhi allow yaan laysiiyeenaa macnaha maxaa la ii siiyey kitaabkayga walam adri allow yaanan ogaadeenaa maa xisaabiya xisaabtayda oo yoonan ogaadeenaa xisaabtayda allow maxaan u ogaaday xisaabtayda ayada dhanba maxaa la ii ogeysiiyey yaa laytahaa dhimashadan aan dhintay shallaytadeedee kaanad ahaateenaa dhimashadaydu alqaadiyata mid wax jarayso nolosha iga jaraysa maxaa mar kale la ii soo nooleeyey maa aqnaa ma usan deeqin cannii xaggayga buu odhanayaa maaliyah xoolahaygu waxba iguma tirin haa usagti baa la yidhaahdaa halaka waxaa halaagsamay cannii xaggayga suldaaniyah awooddaydii
iyo xujadaydii adduunyada aan haystay maanta way u dhammaatay waxaa malaa'igta loo dhihi doonaa khasanatu naar zabaaniyadii aan soo marno weeyi khuduuhu gaalkaan qabta faqulluuhu katiinadeeya gacmaha iyo qoorta iskaga xidha markii gacmaha iyo qoorta la isku xidho oo saa loo katiinadeeyo humma aljaxiima naarta jaxiima la yidhaahdo salluuhu geliya baa loo odhan doonaa markii naartaa la geliyo bir naareed oo silsilad ah oo hal xaboo ka mida adduunka haddii la dhex dhigo ay kulli qarxayso baaba'ayso oo 70 dhudhun oo dhudhunka malaa'igta weliba ah baa afka laga gelinayaa duburkaa looga bixinayaa naarta lagu dhex jiidayaa caadana allahu minha humma fii silsilatin silsiladaasoo darcuhaa dhudhunkeedu 70 diraacan 70 dhudhun ou yahay faslukuuhu geliya birtaas intaa la eg afka ka geliya duburka uga sii bixiya loo odhan doona intaa cadaaba wuxuu ku mutaystay wuxuu beeniyey ilaahay wuxuu xaqiray masaakiinta maanta wax qaraabaa wax ku tari kara ma leh wax cuntaahow helaya ma leh qur'aankiibuu diiday qiyaamadiibuu diiday xisaabtiibuu diiday rasuulkiibuu diiday xaqiibuu diiday saasaa loo cadaabayaa baa leeyahay marka innahu gaalkaani kaana wuxuu ahaa laa yu'minu mid aan rumaynayn billaahi ilaahay allahaasoo alcadiimi ee weyn ilaahay ma uusan rumaysnayn walaa yaxubbu mana boorinaynin calaa dacaamilmiskiini miskiinka quudintiisa in miskiinka wax la siiyana ummadda ku boorimayn falaysa lahu lyawma gaalkaan maanta uma sugnaanin haahunaa meeshaan xamiimun ruux qariib ah oo xamiim ah oo saaxiib ah oo dhowra oo wax ku anfici karaa maanta mehel ayaa la leeyahay walaa dacaamun cuntana uma sugnaanin ilaa min qisliilin mililka ama dhecaankiiyo wasaqda iyo malaxda iyo maasha ka soo mayranta ahlu naarka oonbaa cunto looga dhigaa caadana allahu minha laa ya'kuluhu ma cuno qisliinka iyo wasaqdaas ila alkhaadi'uuna dadka gefka sameeya oo qalabaadka badan maahane wax kale cuntadooda kuwaa ma noqonaysa buu ilaahay yidhi wax kale cunto uma noqoto qisliin falaa uqsimu fa uqsimu laadu waa saa'ido falaa uqsimu fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimaa tubsiruuna waxa aad u jeedaan iyo wamaa laa tubsiruuna waxaadnan u jeedinba waa ku dhaaranaya innahu qur'aanku la qowlu rasuulin rasuul ilaahay soo diray hadal oo idinkula hadlaayo oo ilaahay idinkaga soo wariyo weeye rasuulkaasoo kariimin wanaagsan wamaa huwa qur'aanku ma ahaanin biqowli shaacirin gabyay qowlkiis ma aha qaliilan wax yar ma aad u sii yaraan badan ayaa tu'minuuna ilaahay rumaynaysaan gaalay wax yaraad marmar dhahaydin oon saas baa jidha saas baa xaq ah laakiin wixiinu iimaan dhaba maahan baa looga jeeda ama yu'minuuna ay rumaynayaan walaa biqowli kaahinin falaanfullow hadalkiisna qur-aanku ma aha qaliilan wax yar ma aad u yaraan badan baad tadakkaruuna waana qaadanaysaan wax yar baad waanada qaadanaysaan tanziilun dejin weeye qur-aanku huwa tanziilun waa mid la dejiyey min rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii iska lahay xaggiisa laga soo dejiyey tanziilun ay munazzalun walow taqawala hadduu oraah samaysan lahaa nabiyullaahi moxamed farda almustaxiil baa la yidhaha maba samaysan kare mana samaysanoo maba dhicinba taasuye calaynaa dusheenna oraah beena hadduu nagu been abuuran lahaa oo qur'aanka inta asagu jeebkiisa kala yimaado maba kala iman kare sida aad sheegaydaan hadduu odhan lahaa ilaahay baan aan ka maqlay oo nagu been abuuran lahaa bacda alaqaawiili orahyaalka qaybo ka mid a hadduu nagu been abuuran lahaa la akhadnaa waanu qaban lahayn minhu xaggiisa bilyamiini awood yamiin hadda gacan midig oo ilaahay leeyi odhan maysid yamiin baan ku qaba lahayn sidaadoo kale bidix iyo midig ilaahay ma leh oo sida bini aadamka laba gacmood oo xisi ah oo jawaarix ah oo daata ah oo la yaqaan buu leeyahay haddaad tidhaahdo waa caqiido faasid ah meelna ilaahay bini aadamka kama shabaho adiga midig iyo bidix baad leedahay adiga laba indhood baad leedahay adiga waxa weeye san baad leedahay dhegadaad leedahay
saddex boqol iyo lixdan xibnood oo mafaasil buu sheegay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam baa jirkaa ka kooban yahay. marka tilmaamaha bini aadamka loo yeelo ilaahay ma shabaho, laysa ka mithlihi shay-un, ilaahay wax lamidihi ma jiraan. marka bilyamiin in la yidhaahdo yamiin oo markaa ilaah loo tafwiidiyo oo waa yamiin oo markaa sifo asagu iska leeyahay oo markaa la yidhaahdo macne aan teennaanoo kala ahayn, aananna aqoonin macnaha looga jeedo ilaahayna laa'iqu ah inaad tidhaahdo oo sidaa uga gudubto allahu aclam ah, iyo in sidii lagu fasira bilyamiin hadda midigta waxaad maanta ku qabato awood baad ku haysaa, sidaasay kutubihii ku fasireen. uma laqatacnaa la akhadnaa horta waan qabalahayn minhu xaggiisa bilyamiini awood, uma laqatacnaa waanu jari lahayn minhu nabiga xaggiisa alwatiina, xididka la yidhaha watiinka niyaadulqalbi waa xididka oo ku xiran yahay qalbiga oo qofka hadduu ka go'o wuu dhimanayaabaa la yidhi. famaa minkum idinka mid maahan min axadun qof canhu rasuulka xaggiisa xaajisiina naga reebi kara. wa innahu qur'aanku latadkiratun waana weeye lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqa waanu u yahay. wa innaa annagu lanaclamu waxaan ogsoonnahay anna minkum inay idinka mid taha buu ilaahay yidhi mukadibiina kuwa qur'aanka beeninaya. wa innahu qur'aanku laxasratun shallayta weeye cala alkaafiriina gaalada dusheeda qiyaamada markay arkaan cadaabta ku dhacda iyo mu'miniinta jannaday ku jiraan shallaytay ku noqon doontaa, laakiin maalinkaas kalkeedii maaha. wa innahu qur'aanku laxaqul yaqiini hubaal yaqiinteed weeyo waa xaq hubaal ah qur'aanku. fasabbix macnaha nasah nabi muxammedow calayhi salaatu wasalaam bismi rabbika rabbigaaga magiciisa allahaasu alcadiimi ee cadiimka ah oo weyn xumaan oo dhan iyo nuqsaan ilaahay ka nasah. wuxuu nicmo ku siiyana ku shukri oo nicmada oo ku siiyey midda ugu weyno ay tahay weliba nicmatulqufraan baa la yidhi. aayaddan casharkeenu caawa ka bilaabanayo waxay aayadahaani ka hadlayaan qiyaamada markii la isxisaabiyo oo ilaahay la soo hortaajiyo, qof kasta la soo hortaajiyo. dadka laba qaybood bay u qaybsamayaan. qaybna kitaabkooda markii la xisaabiyo waxaa laga siinhayaa gacanta midigta ah, qaybna waxaa laga siinayaa bidixda. ilaahay kuwa midigta laga siiyo ilaahay nagu daro. marka kuwa gacanta midig looga dhiibo way farxahayaan. wuxuu odhanayaa qofka marka mu'minka ah kitaabkiisa gacanta midig looga dhiibo, sayid cumara ugu horreeyaa la yidhi ummadda qof gacanta midigta kitaabka saas looga dhiibo oo laga siiyo sayiduna cumar binu khadaaba ugu horreeya kutubuhu leeyihiin. dadka marka ahlu sucaadada ah waxaa laga siinayaa kitaabkooda gacanta midigta allaahuma jcalnaa minhum. dadka ahlu shaqiyada ah oo khaatuma xumadu ku dhacdana kitaabkooda waxaa looga dhiibaa gacanta bidix, allaahuma najinaa minhum allow naga badbaadi. fa amaa man uutiya qofkii laga siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi gacantiisa midigtaa qofkii looga dhiibo oo gacanta midigba laga siiyo kitaabkiisa farxaya markaas wa farxiga ka badanaayo. markaasuu ummadii ku dhex wareegaya fayaquulu wuxuu leeyahay haa-umu qaata kitaabkayga hooda, iqra'uu akhriya oo odhan doonaa baa la yidhi war akhriya kitaabkayga qabsada oo akhriya. qof kasta u arag anigu maanta waxa weeye guulaan gaaray, ilaahay kitaabkaygii midigta uga siiyey. maalinkaasaa la yidhaahdaa waxa weeye qofkaas imtixaamkiibuu ku baasay. waa qofka waxa weeye markuu qabriga marayo, markuu siraadka marayo, markuu qiyaamada yimaado, qofka imtixaamka ku baasa qofkaasaa la yidhaahdaa shahaado la hubo qofkaas baa helay. laakiin shahaadada kaloo loo ordayo iyo waxaan kaleeto laleeyahay waxa weeye bilad baa la guddoonsiiye iyo waxaan kale o dhan waxa weye iska khayaali wa iska wax dunawi ah. laakiin maalinkaasaa la rabaa in waxa weeye saad guul ku keeni laheed oo aad markaa ku qaadi laheed aad ku dadaasho. taasaa la rabaa caqligaaga inaad iskugu geydo iyo fikradaada. waxaan kaloo dhan inaysan meel gaarayn waad aragtay. ninkii intaasna waxa weeye guulow gaaray iyo intaasoo koobu qaaday iyo intaasoo meelow adduunka waxa hadda waxa weeye dhaqankaasa hadda lagu hallaabay. dadka soo korayoo dhamma maanta diin iyo maxaa diinta loo qabtaa iyo say ugu fekeraan maba u badnaba. kaliya saad lacag ku heshaa, saad bilad koobka u qaadaa,
seed macnaha waxa weeye sharaf uga yeelataa si adduunka iyo waxa weeye caalamka lagaga aqoonsadaa oo koonka macnaha aad uga noqotaa nin macruuf ahoo la yaqaano waxyaabaha noocaasa lagu fikiraya qaybo male innii anugu buu leeyahay haddana ruuxa mu'minka ahi danantu anugu waxaan yaqiininayey oon malaynayey dhanniga bimacnaa yaqiin baa looga jeedaa markay mu'minka ka timaado qur-aanka yaqiin baa laga wadaa gaal hadday kasoo fushano shaki baa laga wadaa baa la yidhi anugu waxaan yaqiinsanay oon malaysanayey annii anugu mulaaqin inaan la kulmi doono qiyaamada xisaabtayda inaan la kulmi doono saas baan yaqiinsanay markii adduunyada aan joogay marka waa u diyaar garoobay camal wanaagsan baan la imaaday salaadii baan ku dadaalay wuxuu yidhi sayid xasanu bisri ruuxa mu'minka ah malada ayuu wanaajiyaa ilaahiisa marka camal fiican buu la yimaadaa munaafiquna ilaahay xumaan buu ka malaystaa markaasuu xumaan sameeyaaba fa huwa ruuxa mu'minkaa fii ciishatin nolol dhexdeed buu ahaaday raadiyatin ay mardiyatan laga raadi ahaaday nolol oo waxa weeye wanaagsan oo ka raadi noqonayo ku jiraya maxaa yeelay ahlu jannaha waxaa soo arooray nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannaday ku noolaanayaan weligood ma dhimanayaan waa caafimaad qabaan weligood ma jiranayaan waa nicmaysanayaan wax dhibaataa ma arkayaan weligood bowl la kulmi maayaan saxaro ma lahan candhuuf tufi maayaan xaaka tufi maayaan ma duqoobayaan ma xanuunsanayaan ma xanaaqayaan ma welwelayaan ma tiiraanyoonayaan wax cuqdad iyo xumaato la yidhaah oo isbeddela ku dhici maayo cuntada ay cunaan dhibaato iyo u soo mari maayaan waxay ishtiheeyaan ma weynayaan ilaahay ha nagu daro ilaahay dadka waa wanaagsan oo ahlu sucaadada ah oo qur-aanka ilaahay oo noo tilmaamay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nooga sheekay ilaahay ha nagu daro marka nolol wanaagsan meeshaas oon baa lagu tilmaamay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dhibaato iyo baahi iyo waxyaabo badan oo masaa'ibta adduunyada markuu arko hadallada oo dhihi jiray waxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam allaahumma laa caysha ilaa cayshul aakhira ilaahow nololu ma jirto ilaa midda aakhiro mu'miniinta ilaahay u tilmaamay nolol qayma leh waxaa la yidhaahdaa ilaahay miduu mu'miniinta aakhiro u ballan qaaday quduufuhaa fii jannatin janno dhexdeed buu haddana ahaaday jannadaasoo caaliyatin sarrayda buu ilaahay yidhi janno sarrayda dhexdeeda ayuu gelayaa mu'minku waa caaliya xagga sharafta xagga daaraha xagga dabaqyada xagga muuqaalka kulli way ku sarraydaa quduufuhaa gurashadeeda iyo midhaheeda la guranayaahu daaniyatun way dhowdaha buu ilaahay yidhi midhaheedu waa dhow yihiin qofka waxaa la yidhi midhaheeda markuu guranayo qofka taagan qofka fadhiya qofka jiifa kulli waa iska qaadanayaan geedka waxaa la yidhi mu'minku asagoo jannada iska jiifa geedka midhaha ku yaalla midhuhu inta kuu soo laalaadsamaan ayay afka kuu soo gelayaan markaad goosato geedku meeshiisiibuu tegaa markaad u baahatana waa kuu imaanaya ilaahuw nagu irsaaq waxaa loo dhihi doonaa mu'miniinta ahlu jannaha ah kuluu cuna ayaa loo dhihi doonaa washrabuu caba hanii'an xaalaatiin kuwa bogagsanaya kuwa shifaysanaya oo hanii'antu waxa weeye adinka oo waxa weeye cuna oo cabba wax dhibaata aan la kulmayn adinka oo wax dhibaata aan arkaynin adinka oo faraxsan adinka oo caafimaad qaba adinka oo nabad galay ayadoon cuntadu kugu mergan oo kugu istaagin oon calool xanuun waxa weeye waa shifaysanaysi saasay ka dhiganta kuna cuna kuna cabba bimaa aslaftum waxaad hormarsateen fil ayaami maalmihii alkhaaliyati soo tageen acmaashii aad soo hormarideen adduunyada markii la joogay salaadii soonkii qur'aankii daacadii toobadii salawaadkii kulli khayraadkii adduunyada markaad joogtay dhawaq kasta oo wanaagahood ku dhawaaqday malaa'igtu waxay kuugu dareen liiskaagii kuugu dareen waa laguu qoray qiyaamada horta lagaa soo dhigayaa marka wanaaggaas aad horay u soo shaqaysatay maanta waxa weeye midhaheedii cun baa lagu leeyahy waa tan ahay waa ruuxii wanaagsanaay qofkii xumayna waa kan marka wa amaa man uutiya qofkii la siiya buu ilaahay yidhi kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi gacantiisa bidixda ah ilaahan ka magan galnay qofkii gacanta bidix kitaabkiisa looga soo taago waa khasaaray shaqaa waa ku dhacday fa yaquulu wuxuu leeyahay
yaa laytanii shallaytadayde lam uuta laysiiyeena kitaabiyah kitaabkayga walam adri ma ogaadeena maa xisaabiyah aniga xisaabtayda lam uuta laysiiyeena maxay tahay macnaha maxaa la ii siiyey kitaabiyay ka dhiganta alla kitaabkayga maxaa la ii siiyey walam adri maa xisaabiyah xisaabtayda ma ogaadeena macnaha maxaan u ogaaday alla waanan ogaadeena maxaan u ogaaday iyada dhanba maxaa la ii ogeysiiyey xisaabtaan kitaabkan asaga dhanba gacanta maxaa la iigu geliyey isaga dhanba maxaa la ii tusay waa calaacal maxay taraysaa yaa laytahaa shallaytadeede yaa laytahaa damiirka ku jira almawta aa loo celiyaa dhimashadan aan dhintay hal mar hadday naftu iga baxdo oon mar labaad nolol laygu soo celi lahayn oo jirka gaalka haddii hal mar naartu cuni laheyd waxbay u ahaan laheyd baa layidhi ahlu naarka waxaa layidhi haddii la odhan lahaay dhulka adduunyada waxa dhagax yaalla ama quruurax yaalla intaas oo sana muddo la-eg baa laydin cadaabayaa kabacdina naarta waa laydinka soo bixinayaa la farixo waa farxi lahaayeen baa layidhi maxaa yeele waa wax dhammaanaya shay dhammaanayaba haddii loo sheegi lahaay waa ku farxi lahaayeen laakiin cadaabta ahlu naarku ay ku jiraano acaadana allahu minhaa ilaahay naga badbaadiye waa daa'im lanqidaaca lahaa dhammaad ma leh wuxuu dhammaad hadday leeyihiin waaba ku farxi lahaayeen baa la yidhi marka wuxuu leeyahay yaa laytahaa alla dhimashadan shallaytadeedee kaanad ahaateena alqaadiyata midda nolosha jaraysa midda nolosha dhanba iga goyda oo hal mar naftu iga baxdo aysanna igu soo laaban maxay u noqon weydi falam ubcas bacdahaa walam ucadab saas maanta iigu noqota tamana almowt walam yakun shayun cindahu akrahu min almowt bur imaamu qataade wuxuu maanta jeclaanayaa dhimashadii ou nabcaay mar maxaan u dhima waayo kabacdi usoo noolaaday saasuu leeyahay maa aqnaa ma deeqin cannii xaggayga maaliya xoolihii aan ku takaburi jiray oo aan ka dhiibi waayey waxa weeye sekada oon ka bixi waayey khayrka oon muslimka uga kaalmay waayey oo aan masaakiinta iyo qaraabada ka gooyey oo agoonta aan waxa weye ka xoogayo ka khiyaanayay muslimiinta oo aan khiyaanada ku cunayey oo aan masaajida ka camiri waayey maanta waxaba igumaysan tarin naar igama badbaadin halaka canni xaggayga waxaa ka halaagsamay suldaaniya aniga awoodaydii iyo xujadaydii iyo saldanadaydii boqortinimadii aan lahay sharaftii aan lahay jaahii aan lahay magacii aan lahay muunadii aan lahay oo bulshadu hebel waa ganacsade cajiiba lay dhihi jiray oo tolku soo ka imaan jiray lacagta ilaa qayma ku lahay ninkii lacagta qaymaha ku lahay miskiinkaas labada ragcoo subaxa usii dheelmanaya laakiin shaatigu ka dildilaacsan yahay waa oo mu'min ilaaheeya oo ku haya allaahuma salli calaa muxamed iyo laa ilaaha ila allahu kaasaa addoonka ilaahay ah laakiin ganacsadaha ninka isku haysta adduunka inuu soo dhammeeyey oo ou yahay waxa weeye adduunka midka ugu sarreeya qiyaamada hadduusan camal ou la hor istaago ilaahay uusan u samaysan wax ka horreeyaa ma jiraan waxaa u dambay doonta halaka cannii suldaaniya alla aniga saldanadeydii waa halaagsantay awooddaydii sharaftaydii iyo maalkaygii iyo jiritaankaygii nin magac labaan ahay waa u dhammaata waxaas magacaas iyo waxaas adduunka markaad ka tegaydo mara cad baa kaa raaxaysa aawa sharaftii maradaas cad iyo adigaa is yaqaana madaxweyne u ahaay boqorad buu ahaay fulaan buu ahaay ganacsado ahaay aqoonyahan buu ahaay waxaas waa u dhammaatay khalaas waxaas waa laga tegayaa waxaa ku raacaya adiga iyo camalkaaga inta kale waa kaa soo laabanayaan saasuu nabigeenu noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu waa qaadayaan qabriga marka la geeyo ilaahay wuxuu u odhanayaa malaa'igta naarta ka shaqayda oo 19 malag oo la yidhaahdo sabaaniyada qabta oo horta katiinada ku xira gacmaha iyo qoorta saan baa la iskugu xiraya markii sidaan la iskugu xiro naarta jaxiima lagu tuuraya aadana allahu minha 70 dhudhun bir oo naareed oo silsilado galgaloolan oo isku daba xiran ah oo waxa weeye 70 dhudhun oo malaa'igta dhudhunkooda ah dhirjeeda adduunka dhan way ka weyntaha la yiri afka laga gelinayaa duburka looga bixiyaa duburka markaas naarta lagu dhex jeedaya aadana allahu minha aayada noo qoraysa waatana waxa malaa'igta loo oran doonaa khuduuhu qabta zaalimka faqulluuhu katiinadeeya oo gacmaha iyo qoorta iskaga xira thumma al-jahiima naarta jahiima la yiraahdo salluuhu galiya aadana allahu minha
ثم في سلسلة داسو ذرعها من تيدو 70 ذراعا فيره 70 أي سيتهي markii dhudhun la saaro intaasii tagay faslukuhu galiya oo afka ka galiyo duburka uga bixiya wuxuu yiri Abdullah ibn Abbas birtaas la gelinayo waa bir naareed 70 dhudhun oo malaa'ikta weeyi oo bidiracil malak oo yiri Abdullah ibn Abbas waxa laga gelinayaa duburka waxa laga bixinayaa buu yiri dhuunta waxa la kulminayaa foodiisa iyo gomadihiisa silsiladu waa bir oo isku duman mid kasta mid ay ku sii xiran tahay waa lagu duuduubayaa ma nuuxsa karo ma dhaqaaqi karo naarta la gelinaya cilada loo cadaabayaahu ma ahan in lagu xadgudbay asaga ayaa quraanka rumay waayay asaga ayaa ilaahay raaci waayay nabi maxamed jidka uu maray qaad baa lagu kari waayay calayhi salaatu wasalaam marka maanta waxa weeye jawaabtiisa iyo mudankiisa la marinaya innahu qaalkaani kaana wuxuu ahaa laa yu'minu mid aan rumaynin billahi ilaahi al-aziimi ilaaha cadiimka wuu rumaydiiday saasa loo cadaabaya ولا يحب من بورجرين على طعام المسكين مسكين كأن لقوضيه فيري إلهي الرومينتي سوحا لغو حجي مساكينتي والله دبردقي مسكين كأن لقوضينا وحوي أمدكم بورجرين فليس له أمصغنا عن ظالم كان اليوم ما انتهى هنا ميشان بولاهي يري حميم مت قريب وقرابة وحكتر كره ما انت مهلاي وحميم هو معناها وحوي قرابه أهله وحلقه بكره وعذابتك بدبادي كره ما انت ما هيست وصاحبه عذابك الريب كره بحال انك مت صاحبك لو كعر ريابا لي ولا طعام عنتنا أمصغنا عن ظالمك إلا من قسليل وثقبة iyo mililka iyo daashunka iyo waxa ka soo meermaya oo dhiiga iyo maasha ahlunaar ka soo baxaya baa leeyahay ahlunaarka waxa ka soo meermaya kuwa kale ba waxa leeyahay cunto ka dhigta qaarna geed la yiraahdo naarta ku dhex yaala oo la yiraahdo zaqum in shajarata zaqum da'amul asim naarti ka dhex baxda sida suuratu saafaad noogu imaan doonto insha Allah cunto looga dhigaa qaybna waxa cunto looga dhigaa hadda ka horba sidaan soo marnay ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع جيت كلا يرى ضريع أو حرار كبضا أيا اللي يرى عنا عنتداس مركي عنان دونتي uga istaagaysa in لدينا أنكالا وجحيما وضعاما ذا غصة وعذابا أليما cuntada waa lagu marganaya markay doonta uga istaagto bay waxay oranayaan ba ahlu naarku waxay dhihi doonaan ba la yiri biyaan cabno oo cuntada iskaga dajino aan u baahanay waxa naloo keeno malaa'iktu waxay u soo qaadayaan biyo aad u kulayl badan oo qofka marka loo soo dhaweeyo oo hal mar uu saa u dhadhamiyo min dhicirka iyo caloosha dhan agoogo isaacadana Allahu minha waa loo keenayaa waa loo dhiibayaa ababay maagayaan min dhicirkooda gadaal bi ka sii daynayaan baa la yiri wasuqu ma'an hamiman faqada'a am'aahum bu ilaahi subhanahu wa ta'ala biyo kulul baa la siinayaa markaas min dhicirkoodu saas u shiilmaya waa googo ayaa ilaahay naga badbaadiyo la yaakuluhu ma'una qislinka iyo wasaqdan iyo mililkan iyo dhacaankan illa al-khadi'una kuwad gafah oo dambaaba maahna wax kala cunaya waxaan ma jiraan ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala fala uqsimu fa uqsimu waxaan ku dhaaranaya bima tubsiruna waxa aad u jeedaan oo dhulka iyo cirka samaawaadka shamsada kulli iyo wama la tubsiruna waxaadnan u jeedin oo idinka qarsoono jannada iyo naartu kamid yihiin baan ku dhaartay innahu quraanku la qawlu rasuul laydin soo diray waa nabi maxamed hadal oo idin kula hadlaayo weeye oo ilaahay oo xaqiisa idinka keenay rasuulkaas oo kariimi wanaagsan wama huwa quraanku ma ahaanin biqawli shaa'irin nin gabiyay hadal oo yiri ma ahan waa kalaamullah قالي دعاية اسكا داف قليلا ما وحير ما ايا تؤمنون رمين ايسان انت رمين ايسان هذا رمين بقالة لغا هيرو لكن مرمر او انت معناها سيدا مركي قرآن انت اللي قدو الاقريي ننكي وليد بن مقيرون سورة المدثر وقصوا شكينو كلاته او يري مكو اركتين النبي محمد سوى بين شيغية مكو اركتين اساقو كاهنة او ايدهن واصح مرمر دفها الذين وحاسي واصح لكن إيمان قلبي أمرنا ملهدين ولا بقول كاهن مدفلان في اللوءة أو كتاب قاب لوءة قولك معها كاهن كوحا اللي هذا
المخبر عن المقيبات من جهة النجوم حدقها وحلقة تصي قفك وحكو الشيغة او حدقة فيرينتا معناها اي حدقها اي بلايدا كو قرابته بال لي هذا او سيدا امده وحقو قلام معودية marka kaasoo kaleeto warkiisa la rumayn maayo walaa biqawli kaahinin ruuxa falaanfulowga ah oo kaahinka ah qowlkiina quraanku ma ahaanin qaliilan wax yar ma aad u yaraan badan baad tadakkaruuna waana qaadanaysaan oo xusuusanaysaan waanada iyo khayrka tanziilun huwa quraanku tanziilun ay munazzalun waa mid la soo dejiyey min rabbil caalamiin caalamka oo dhan rabbigii iska lahay xaqiisa laga soo dejiyey walaw taqawwala hadduu ku oraah samaysan lahaa nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam calaynaa dusheenna maba ku samaysan kare oo korkeenna wax aanaan dhihin hadduu nagu dul samaysan lahaa bacdal aqaawiili orahyaalka qayb ka mida dusheenna hadduu ku abuuran lahaa oo waxaanaan dhihin wow ilaah baa yidhi dhihin lahaa la akhadnaa waxaanu qaban lahayn minhu nabi muxamed xaggiisa calayhi salaatu wasalaam bilyamiini awood baan ku qaban lahayn waan ciqaabi lahayn bay ka dhigan tahay hadduu waxaanaan dhihin ilaah baa yidhi ouna odhan lahay oo korkeenna uu ku orah samaysan lahaa oo kalaamkeenna annagu kalaam aanaan ku hadlin oo been abuurada hadduu idiin keeni lahaa awood baan ku qaban lahayn uma laqadacna waxaanu goyn lahayn minhu nabi muxamed xaggiisa calayhi salaatu wasalaam alwatiina xididka halbowlaha la yidhaahdo watiinka waxaa la yidhaahdaa caraqun yatacallaqu bihi alqalbu xidid oo qalbigu ku xiran yahay idan qadaca maata saaxibuhu markii xididkaas oo go qofku waa dhimanayaa baa la yidhi famaa minkum idinka mid maahan min axadin qof canhu rasuulka xaggiisa xaajisiina naga teedahaya oo haddii aynan annagu qabanno intou been naga sheego aan doonno qof naga reebi kara cadaabtiisana ma jira weeyaan macnuhu waxa weeye nabi muxamed laa yatakallamu lkadiba calayna liajlikum maca cilmihi annahu law takallama lacaaqabna maxaa yeele wuxuu og yahay haddii aan uu qalad sheegi lahay inaan ciqaabi karno qof naga reebaysan aysan jirin marka nabigu been ma sheegayo qowl shaacir maaha qur-aanku ayagiyaa wax la tusayaa oo ilaahay uu runta u caddaynaya weeye wainahu qur'aanku latadkiratun waana weeyaan waa waana qur'aanku waa tadkira lilmuttaqiin qur'aanku waa tadkiratun lilmuttaqiin weeyaan ayadan wainahu latadkiratun lilmuttaqiin ina hada alqur'aan lacidatun lilmu'miniin almuttaqiin aladiina yakhshawna allah qur'aanku waa waano oo wuxuu u yahay mu'miniinta looga jeeda wainaa anagu lanaclamu waxaan ognahay anna minkum mukadibiina inay idinka mid yihiin kuwa mukadibiin ah oo qur-aanka beeniyey iyo dad mu'miniina inay jiraana waan ognahay buu ilaahay leeyahay waxaan ognahay inay idinka mid yihiin kuwa mukadibiin oo qur-aanka beeniyey oo qur-aankii inkirahaya oo qur-aankii diidaya oo weliba ka warqaba qur-aanku inuu xaq yahay wainahu qur'aanku laxasratun shallayta weeye cala alkaafiriin kuwa gaalada ah qiyaamada dushooda ayuu shallayta ku noqonaya wainahu qur'aanku laxaqu lyaqiini hubaal xaqeed weeyaan hubaal yaqiina weeye qur-aanku oo la hubo inuu ilaah xaggiisa ka yimid oon shaki lahayn oon shaki iyo qof caaqiluhu inuu kalaamu rabbilcaalamiin maba ka shakin kara weeyaan fasabbix nastah bismi rabbika rabbigaaga magaciisa alcadiimi ilaaha cadiimka ah magaciisa xumaanka nasah nuqsaanka nasax wuxuu ku siiye ka shukri celi oo nicmooyinka ilaahay nabiyullaahi maxamedow annagana la hadlaya casharkeena caawa in suuradaas dhammaadkeedaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq ilaahay aan nagu anfaco ilaahay na fahamsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu